darbijiifkii xidiga noqday. Ted Williams waa muwaadin Maraykana waxaa muddo 3 sano uu ahaa darbijiif isla markaasna dawarsada balse maalin ayay si kadisa u kulmeen nin wariyaa isaga oo wadada ka tuugsanaya si cajiib ayuu ugu codsaday gargaar ama caawimaad. ninkii wariyaha ahaa ayaa ka helay ninkan codkiisa waxa uuna ku yiri xogaa lacag ayaan ku siinayaaye bal cabaar ila hadal. Hey, I'm going to make you work for your dollar. Say something with that great radio voice. When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. muuqaal ayuu ka duubay muuqaalkii ayuu ku baahiyay barta YouTube. qof kasta oo daawaday muuqaalkii ayaa la tacajabay codkiisa Ilaahay ugu deeqay waxaana isla markii laga waday wadadii iyo noloshii darbijiifnimada ahayd. raadiye ayaa la geeyay waxaana uu noqday daadihiye barnaamij si toos raadiyaha uga bixi jiray. Live from Studio 1A in Rockefeller Plaza. waxa uu kasbaday dad badan oo aad ugu riyaaqi jiray marka uu barnaamijka ku jira ama uu tabinayo waxaana loogu magac daray ninkii codka dahabiga lahaa. noloshiisii oo dhan ayaa isbedeshay lacag ayuu yeeshay waxa uuna noqday xidig. qof kasta waxa uu ka codsan jiray ama uu jeclaa in uu sawir la galo. shirkado fara badan ayaa ka codsaday inuu alaabta ama badeecadaha u xayeysiiyo. noloshiisii oo dhan ayaa isbedeshay lacag ayuu yeeshay waxa uuna noqday xidig. TV badan ayaa waraysiye la yeeshay waxa uu sheegay mar uu ka hadlayay noloshiisii darbijiifka inay ugu wacnayd kadib markii uu bartay isticmaalka daroogada taasna ay sababtay in xaaskiisii ay ka tagto oo caruurtina kala tagto. ka sokow codkiisa soo jiidashada leh waxaa kale oo eebba ugu deeqay dabeecad wanaagsan furfurnaan iyo kaftan. qof kasta ay isbartaan waxa uu jecel yahay inuu la sii joogo. waxa uu bilaabay inuu caawiyo dadka darbijiifka ee ku jira noloshii isagu ka soo baxay. haddaba daawade ujeedada sheekadan ma ahan inay tahay dhacdo hadda dhacday oo kaliya ee waa inaad ogaato in dadka qaarkeen aan yasno ama aan iskala weynahay ee aan ugu yeerno waa darbijiif waa tuugsade iyo waxyaalo la mid ah ay duruufo u geysay lagana yaabo inay qaarkood leeyihiin hibooyin gaar oo Ilaahay ku manaystay.